cabasho waxaan ka nahay gudoomiyaha magaalada iyo gudoomiyaha ku-xigeenkiisa ala dhuusan reeb dhibaato badan ka jirta caasimadda Galmudug in maamulku ku wada og yahay iyo in dad shakhsiyaad ay tahay labadaas ma kala aqaan anigu waxaan ahay gudoomiyaha inta xaqoodu maqan yahay waxa jira shalay meeshan dad baa iskala dhulkan aan joogno hadeertaan dad maskiina oo yateena qaar curyaama meeshan waa magaalada dhuusan reebeed dalcadda weeye waa isbitaalka Swiss irideeda ka soo horjeedka dad baa deganayeen ku deganayn nooc walba dadkaas waa ka kooban yahay waxa kamida dad ay u kureysanto bariiska ka cuna dad ku shaqaysto shaaxooda ka raadsada hadeer meeshan gabar baa ku ganacsanaysa koobka shaaxa ay ka raadida risaq meel kale wax kama soo galaan waxa idin soo haray gabdhaha kale ku ganacsada iyo dadka kale ku ganacsatoon ka midna anagu waxaan sameeynay waa aan deganahay waa aan joognay dad kamid ahaayo laamaha dawladda kamid aha waxa la yiri kolba awal looga cabsan jiray waxa la yiri shalay waxay ku dhinteen dagaal ka dhacay Hiiraan Sooman meel leeyahay anigu ma aana tagin dadkii meeshan wax uga ganacsan jiray qaar aha kamid ah ilmahoodu joogeen ayagoo qarankii u shaqeeyay waxa la yiri ninkii qaranka u shaqeeyay oo sargaalka ah waa dhintay 10 saac annaka la ooyayna dhahayna abooyaalo xagee dhafarada saaso haysan waxa ku xigtay ilmihii calaha lagu qaaday waa soo baxnay wariyaa mucjisada ka dambeeyay markaas waxaan nirbalaan ogaanay oo kaad waa soo tagno magaalada waxaan nir awala magaalada aan ka yaabanayno islaan ilaahu rabbi oo dad u bix ilaahu rabbi dadka isku duwi laha meeshan ama biyaha ka fur laha intaas rooba markay daan 90 jirka guriyaha kama soo dhaqaaqan 3 bilood roobku daa oo irsaaqada ilaahay oo kaano saas marka dhaqaaq maaqdo saatana kala ka adaa dhaha waa isla fiican tahay kan uu sareeyo ganacsadaha wasal dhalaq oo kuleeyahay markaas war biyo xagay aadi jireen war qurbahan ka nimid anagu hay xaaku maqashan dhuusan reeb waa meel fiican war walaalayaal waa maxay waxa jira xagee dawladda magaalada xagee aad maamulka magaalada dawladdu kar waa ka wada joogtaa biyahan iyo ku shaqalaha xaafadaha iyo qashanka xagee aadeen waxaan niri ilaahu rabbi dadka bal anagu wax tari meyn anu malaha dadka soo socda ma wax tari doon namba waa joogno meel qof walba meel markii dawladda dhacday meel fariisad nin waxa uu fariistay barkadii dhamaayo qashinka magaalada ay ku shubi jirtay hadeer qashinkan waa aan qaada habeenkii ganacsatada intaan qaadleedan ka arooriyaa subaxii waxaan niri bal meesha waa xarumo dawlad agteedii yaa qarax iyo balaayada murtadiintu wada ay sanoogu imaan arooriya ana lacag ku baxsho mid aan maalintii dhagax ka soo shaqeeyaan ku bixiyaa hadeer waa taskorkayga u saaran yahay waa qashin ma jeedin marqaati ma doonto way biyahan sakaalka hadeer waa aroorin meel halkaas aan ku shubnaa booyadan ku kor shubnaa jaran caag shanqaadaho jaran meel ma leh qashinka waxa degay gudoomiyaha magaalada waa geeda qorow bundadana waxa degan gudoomiyaha ku-xigeenka warqadu soo sameeyo wuxuu yiri hal laga guuro meeshan dawladda iska leh war hadda dawladda balki meeshan 30 sano dawladdu ka maqanta annakana waardiyaheena joognee waa dhulkii dawladda adiguna baraagtiya ku fariisat adna kanaalkii biyaha qashinkan mar laayana ku fariisatay xagee adiga lagu soo sameeyay markaas uu anigu lacag aan la baxo markii la isoo magacaabay meeshan xilka waxaan ku helaa inaan dhulkaan dhaco dadka aan shacabka dhaco war hadaa shacabka dhacay annagu waxaan nir marka bal muslim kale aan raadin intaasaan warbixinta u sheegaynaa islaamka waxaan u sheegaynaa in labadaan nin ka qabto intaasaan u sheegaynaa wixii wax noo qabaa biyaha noo furo qashinka waa tuugo soo heshiida weeye ninaana baqaar lacag taala waxa uu tagtaa leer 3 tuugo caana markaas war dhahaya magaaladii aan nimanka markaas hebelow dukaankaaga lacagtu taala sarif la ahayd yaa uga tagad markaas wuxuu yiri waxaan uga tagay cadaalad tuugadii markaas leer bar horta cadaalad inay wax ilaaliyo in kala aan raadin waa la soo tago habeenkii marka laga maqnaa 24 saac dukaanka lacagta loo yimid saasa isha loo mariyay
markaasaa la yidhi war meeshaana wax ma yaaliin waxba lagama qaadina maxaa yahay aawati war tuugo markaasay dhaanaa la yidhi war haadhahaya intaan isku maqnayn aanal ka faa'iideeyay nimaya waxna ma aanna qaadan irsaqa marka dadweyne irsaqa ay raadiyaan dadku ama aan raadino horta waa koobka shaaxa meesha aan ka raadinaana waa halkaan in nimankaas nala ka qabto aan doonaynaa ilaahay inuu naga qabto dadkuna ay nala arkaan oo marqaati ka noqdaan intaas aan doonaynaa annaga irsaqa aan raadinaa waa shaaxaas tilaabadan qaadaynaa waa inaan ilaahay u barino iskana dhicin cadowgaan awal u jeedno inaan cadowgaas iska dhicin gudoomiyaasha lamid ah waa kuwa dagaalada iyo jihaadyada ku jira inuu marka gadaal noogu soo fidana waa nasiib darro marka waxaan tilaabada aan qaadayna waa inaan iska dhicin wax kale noo bannaan ma jirto sababtoo hungurigaas waaye hungurigaas meel haddii halkaas dhab lagu yidhaa xaggee aadi meeshan waxaa ka dhaca 12 nagu soo kalle 12 xilliga dadka islaamka ay salaada ku jiraan iyo masaajiday nagu soo kalle inta gabar xabsi u soo geeyay war maxaa ka wadaa naruurmo waana muslim markaas marka waxaan naruur maxaa muslim askartii ciidamada qalabka sida qayb kamid ah la socod war askaray waxaan nir meeshan aan waa nagu taqaanin soo nagu mid booskan yaa ku taqaan hebel kan yaa ku taqaan hebel kan yaa ku taqaana gabadha heblaaya kan yaa ku taqaana gabadha heblaaya kan yaa ku taqaana gabadha heblaaya haye gabadhaanu ma hadda ay qabsatay mise weligeeda joogto ilaa 30 sano ay wax ku gadayday shaaxa ku gadayday iyo burkii waa laga xirxiray iyaga dhamaa waa la xirxiray ilaa xaladhan 4 saacan ayagii si loo bariyayo dad kale muslim oo bariyayeen soo daayeen cabasho waxaan ka nahay gudoomiyaha magaalada iyo gudoomiyaha ku xigeenkiisa oo nina tubadii goostay biyuhu marayeen kanaalkay marayeen nina barkadee dhist hanal ka qab